Israa'iiliyiintu hadda waxay leeyihiin derbiga birta ee loo dhisay inuu ilaaliyo amniga Israa'iiliyiinta degan daboolka Gaza waa mataanaha derbigii Faransiiska ee Maginot Line kaasoo Faransiisku ay dhiseen ka hor intii uusan bilaaban dagaalkii labaad ee dunida si uu uga difaaco ciidamadii Jarmalka balse Maginot Line waxay ciidamadii Naaziga uga takhaluseen 4 maalin gudahood waxayna qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Paris. Israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin intooda badan kadib dhacdadii 7 Oktoobar in derbiga birta kaliya uu siiyey dareen iyo kalsooni amni oo feeg ah si la mid ah sidii uu derbiga Maginot Line dareen amni oo been ah u siiyey Faransiiska. Haddaba waxaan ka ognahay derbiga Maginot Line ee Faransiisku dhisay si uu uga hortago inay soo noqoto masiibadii dagaalkii koowaad ee adduunka ka soo gaartay Jarmalka. bishii November 11 sanadkii 1918 markaasoo uu soo idlaaday dagaalkii koowaad ee adduunka ciidamada Jarmalka waxay 4 sano kadib dagaalka sii gumaysanayeen deegaanada dhaca bariga Faransiiska waxayna ciidamada Jarmalku Faransiisku ka dileen dad lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 4 ilaa 5 milyan oo ruux. sidaas darteed markii uu dagaalka soo idlaaday Jarmalkiina la jabiyey saraakiishii iyo mas'uuliyiintii Faransiisku waxay isweydiiyeen su'aal aad muhiim u ah taasoo ahayd sideen iska difaaci karnaa Jarmalka ugana badbaadin karnaa dadkeena dagaalka xiga. inkastoo markii uu soo gabagaboobay dagaalkii koowaad ee dunida dalalkii lagu jabeeyeyna ay saxiixeen heshiis lagu magacaabo Versailles kaasoo aad loogu ciqaabay dalalka laga guulaystay sida Jarmalka, haddana heshiiskaasi waxa uu sabab toos ah u ahaa dagaalkii labaad ee dunida sanado kadib. siyaasiyiin badan oo Faransiis ah iyo jeneraalo uu hogaaminayay Marshal Foch waxay hubeen in heshiiska Versailles uu gogoldhig u yahay dagaalka labaad ee dunida. sidaas darteed Faransiisku wuxuu waqti hore sii bilaabay raadinta qorshayaal difaac si uu isaga difaaco ciidamada Jarmalka. hogaamiyaasha Faransiiska ayaa ku kala aragti duwanaa qaabka uu noqon karo qadka difaac ee ay kaga hortagayaan Jarmalka, waxayna khubarada iyo saraakiisha militariga soo gudbiyeen 3 fikradood. waxayna ku baaqeen in la sameeyo dhufays difaac oo ku teedsan xuduudka bari ee Faransiiska. falanqayn dheer kadib waxaa la isku raacay in la hirgeliyo fikrad uu soo jeediyey André Maginot kaasoo xilligaas ahaa wasiirkii difaaca Faransiiska, wuxuuna soo jeediyey in la sameeyo derbi dhufays ah oo ku dhirirsan xuduudka Faransiiska uu la wadaago Jarmalka. intaas kadib baarlamaankii Faransiiska ayaa u codeeyey in la meel mariyo fikradda André Maginot kaasoo ka koobnaa 5 marxaladood. kadibna waxay u codeeyeen sharci loogu magac daray sharciga Maginot. waxaa loo qorsheeyey dhismaha derbigaas lacag dhan 2.9 milyan oo faran. qarashkan aadka u badan ayaa loo qoondeeyey in lagu dhiso qalcado kala firirsan kuna teedsan xuduudaha Faransiiska uu la wadaago Talyaaniga iyo Jarmalka. wejiga koowaad ee dhismaha Maginot Line ayaa qaatay 3 sano waxaana diiradda lagu saaray kaliya cilmi baaris ciidan iyo farsamo si loo hubiyo saxnaanta fikradda uu soo jeediyey wasiirkii dagaalka André Maginot iyo in la doorto goobaha ku habboon. 3 sano 2 guddi ayaa ka shaqeeyey isku dubarid markii ugu horeysay waxayna go'aamiyeen xaaladaha la filayo ee horusocodka ciidamada Jarmalka iyo qaabka uu noqon karo weerarkooda Faransiiska ku wajahan. guddiga labaadna wuxuu go'aansaday in la dhigo qalcado ku habboon si looga hortago horumarka cadowga sida ku cad xaaladaha guddiga koowaad. wejigii labaad ayaa isla muddadaas socday waxaana la sameeyey guddiyo dhowr ah oo heer gobol ah kuwaas oo soo darsay warbixinada guddiyadii hore islamarkaasna go'aan ka soo saari doona sida loo fulin lahaa doorka guddiyadan. sidoo kale guddiyadan ayaa soo saaray ama darsay sida la isku waafajin karo dhismaha qalcadaha iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey. dhinaca kale wejiga saddexaad ee mashruucan ayaa qaatay muddo 11 sano ah sababtoo ah waxay ahayd marxaladda dhismaha. marxaladani waxay ku soo beegantay iyadoo dhaqaalaha Faransiiska uu aad u xooganaa ama aad u kobcay, taas oo ka dhigtay in mashruuca militarigu aanu la kulmin dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah maadaama qadka lagu dhisay qiimo ka badan 9 bilyan oo dollar. lacagtaas badankeedna waxaa bixiyey Jarmalka maadaama heshiiska Versailles uu dhigayay in Jarmalku uu ganax ahaan u bixiyo magdhow dhibaatadii uu Faransiisku gaarsiiyey dagaalkii koowaad ee adduunka. injineerada dhisay derbigan ayaa gudihiisa ka sameeyey tanalo waaweyn iyo meelo hooy ah. waxay kaloo u sameeyeen meelo dhufays ah iyagoo ku rakibay qoryo aad u waaweyn oo lidka taangiyada ah. sidoo kale waxay dhiseen meelo hawada laga qaato wiishash ku shaqeeya korontada, guryo la dejin karo 5 milyan askari oo ka shaqaynayay khadka. waxay kaloo dhiseen qalabka digniinta dabka iyo shabakadaha bulaacadaha. sanadkii 1936 qadka Maginot ayaa si weyn loo dhameystiray waxaana xilligaas saraakiisha Faransiisku
ay ku casuumeen ra-iisul wasaarihii xilligaas ee hogaaminayay ingiriiska Winston Churchill, kaasoo si aad ah ula cajabay qadka difaac ee Faransiisku sameeyeen. laakiin maxaa ka dambeyn doona? injineeradii dhisay derbigan ayaa ku shubay in ka badan 1.5 milyan cubic mitir oo derbiyo shub ah, waxayna gudihiisa ka sameeyeen ilaa 100 meelood oo ka kooban in ka badan 1536 foornooyin ah oo lagu talagalay in biraha lagu dhalaaliyo si ay u soo saaraan hubka iyo biraha loo isticmaalo ujeedooyin ciidan. sidoo kale qadkan gudihiisa waxaa laga sameeyey 23 meelood oo lagu talagalay in la dhigo taangiyada dagaalka. waxaa kaloo loo sameeyey 339 meelood oo loogu talagalay in la dhigo noocyada kala duwan ee madaafiicda, iyo marka lagu daro 152 minaarood oo loogu talagalay in laga ilaaliyo qalcadaha qadka Maginot. sanadkii ka horreeyey intuusan bilaaban dagaalkii labaad ee dunida, saraakiisha Faransiisku waxay ciidamadooda ku tababarayeen qadkan qaabka ay isaga difaaci karaan haddii ay soo weeraraan ciidamada Jarmalka iyo Talyaaniga. dhismaha qadkan wuxuu qaatay 20 sano oo kaamil ah. haddaba qadkan difaac ee dhismihiisa uu qaatay 20 sano, balaayiinta doolarna ay uga baxday Faransiiska ma ka difaacay ciidamadii Jarmalka markii uu qarxay dagaalkii labaad ee dunida. iyadoo Faransiisku ay sameeyeen qadkaas difaac ee aadka u adag si ay ciidamada Jarmalka uga hor istaagaan inay si sahlan ugu soo gudbaan xuduudka, balse Faransiisku waxay mar dambe ogaadeen in ciidamadii Jarmalka ay u ruqaansadeen dhanka dalka Belgium si ay halkaas uga soo weeraraan ugana fogaadaan dhufayska Maginot. balse xuduudka u dhexeeya Faransiiska waxay isku haleynayeen kuna tashanayeen in dhulka buuraha iyo kaymaha ah ee kala qaybiya iyaga iyo Belgiumka iyo wadooyinka kooban ee halkaas soo galaya ay kaliya kaga filnaan doonto inay ciidamo kooban iyo taangiyadooda halkaas geeyaan si ay ugu fashiliyaan weerarka Jarmalka. laakiin General Heinz Guderian oo hogaaminayay ciidamada Jarmalka horeyna uga soo dagaalamay kaymaha Ardennes intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka, aadna u kala yaqaanay dhulkan kaymaha iyo buuraha ah ee u dhexeeya Faransiiska iyo Belgiumka, ayaa la soo kala baxay qariiradii uu watay, wuxuuna dejiyey qorshihii ay ciidamada Jarmalka uga gudbi lahaayeen halkaas si ay u weeraraan Faransiiska. wuxuuna ciidamadiisa ku amray in ay ka soo dhaqaaqaan Ardennes isla markaasna ay raacaan tilmaamaha uu siiyey. dhanka kale, ciidamadii Faransiiska iyo kuwa Ingiriiska oo xulufo ahaa xisaabtana ku darsaday inaysan ciidamada Jarmalka ka soo gudbi karin dhanka buuraha Ardennes maadaama dhulkaas juqraafi ahaan uu yahay mid aad u adag, ayaa xoogooda isugu geeyey dhanka hayndaabka ama derbiga Maginot Line. sida taariikhdu sheegayso, ciidamada Jarmalka ayaa si fudud ku soo dhaafay ciidamadii Faransiiska ee difaaca uga jiray aagga waqooyi, waxaana u suurta gashay ciidamadii Jarmalka inay kuwii Faransiiska iyo kuwii Ingiriiska kasoo dhabarjibiyaan dhinaca xeebta, kadibna waxay u riixeen dhanka koonfureed ilaa caasimada Paris ay ka gaaraan. 4 maalin oo uu dagaalku socday, ciidamadii Jarmalka waxay qabsadeen dhufaysyadii derbiga Maginot ee uu Faransiisku dhisayay 20 sano. sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen ilaa 500,000 oo ka mid ah askartii Faransiiska iyo Ingiriiska. haddaba intaas oo dhan kadib, derbiga Faransiiska Maginot Line ee uu 20 sano dhisayay Faransiiska ee 4 maalin gudaheed ku dhacay, miyuu idin soo xasuusinayaa derbiga ay Israa'iil muddo 3 sano ah ku dhisaysay ee kala qaybiya marinka Gaza iyo deegaanada Israa'iiliyiinta xoogga lagu dejiyey, kaasoo dhismihiisu la dhammaystiray sanadkii 2021. dhismaha derbigan Israa'iil waxa uga baxday adduun dhan 3.5 bilyan oo shekel ama u dhiganta 1.1 bilyan oo dollar. sidoo kale, Israa'iil waxay derbigan ku dhejisay kaamirooyinka ammaanka ee ugu casrisan caalamka, kuwaasoo sidii ay sheegtay xitaa duubi kara dhaqdhaqaaqa tixsiga heehaabaya gudaha Gaza. sidoo kale, waxay ku qalabaysay qoryaha mashiinganka ee casriga ah, kuwaas oo laga hago meelo fogfog. maanta Israa'iiliyiintu waxay dareemayaan wixii ay horay u dareemeen Faransiiska. waxay dareemayaan in derbiga kala qaybiya iyaga iyo Gaza uu siiyey kaliya dareen amni oo been abuur ah, kaasoo awoodi waayey in uu ka badbaadiyo musiibadii 7 Oktoobar iyo weerarkii lama filaanka ahaa ee ay Xamaas qaaday. sidoo kale, waxay dareemayaan inuusan ka difaaci doonin weerar walba oo mustaqbalka uga yimaada Falastiiniyiinta. qad walba oo difaac ama derbi si walbuu u adag yahay, ugu dambeyntii wuxuu noqon doonaa mid la jebiyo sida labadan qad ee Faransiiska iyo Israa'iil, maxaa yeelay labaduba waxaa lagu dhisay gardarro iyo ku xadgudbidda xuquuqda shucuub kale. gabagabadii, waxaa muuqata in inta badan Israa'iiliyiinta ay hadda dareemeen in amni ay helaan ay ku xiran tahay in ay aqoonsadaan xaqa ay Falastiiniyiintu u leeyihiin in ay u madax banaanaadaan dalkooda, iyagana ay isaga baxaan aadaanna wadamadii marka hore laga soo aruuriyey ee Yurub, Ruushka iyo Maraykanka.